xaflad ballaaran oo si heersara loo soo agaasimay loona qabtay dufcaddii shanaad ee ka qalin jabisa macadka hoyga taqwa ee xifdinta quraanka kariimka iyo barbaarinta dhallaanka ee degmada Qoryaale ayaa ka dhacday xarunta dugsigaasi waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada culimaadudiin cuqaal aqoon-yahano arday waalidiin maamulka degmada Qoryaale qaar ka mid ah madaxda shirkadaha maxalliga maamulka iyo macallimiinta macadkaasi iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa ka hadlay munaasabadaasi maamulaha macadka xifdinta quraanka iyo dacwadda diinta taqwa Sheikh Jaamac Ali Cabdulle ayaa u mahad celiyay shakhsiyaadkii udub dhaxaadka u ahaa aasaaska macadkaasi isla markaana qaarkood ay muddo dhowr sano ka taageerayeen dhinaca dhaqaalaha oo ay ka mid ahaayeen wasiirkii hore ee madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan ganacsade Yaasiin Guulad Qaraami Cabdikariin Axmed Maxamed أحمد عبد الله حاج علي مامولك دولة هوسة شركة إسكارسينتا تلاسوم شركة اسمها البراكو حكومة الصوماليلاند يعيد كاستو أو فكرية دقالة كدرستي معهد التقوى sidoo kale marti sharaftii ka hadashay madasha ayaa ku amaanay maamulka macadka taqwa ardayda xifdiday kitaabka Alle ee ay soo saareen iyo dadaalka ay wadaan ee dacwadda diinteena islaamka macadka sida la socota muddo farsamo iyo dheeraad ayuu furay inta uu furnaa waxa quraanka ka dhameeyay shan dafcadood ardayda ku jirta meelahaas ayay gaarayaan macadka hadafkiisa ama ujeedada uu shaqeeya waxa weeye in uu ardaygu quraanka ku xifdiyo tacliim hoose dhexe oo macadana uu ku qaato muddo 4 sano marka la isku soo aruuriyo ardaygu ku bilow yahay isagoo hadhow geli kara macad dugsi sare dabeedna jaamacad uga soo gudbi kara ma aha meel bareefada ama dhaqaale laga helo ugu talagalay ma aha waa meel ugu talagalay dacwada diinta iyo quraanka loogu adeego yaa mahadle munaasabad laga soo qayb galo oo ka qiimo badan ma filayo jirto macadka iyo ardayda qaran jabinaysa waan bogaadinaya waan u mahadnaqaynaa macallimiinta gacanta ku haysa ardayda taxfiir quraanka waa u ducaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala وهذا أمر يسافر بكسير كريم. طبعاً هذا الشيء الجوهر عد إلى التوجيه كم سنة من البشر والقرآن الله سبحانه وتعالى وفوق وترك لهم أي هذا بيقول لا تلبسوه. معهد كان ومعهد هذه الطقي والله يرى والله بيعان الشريف وحبيله والله يعطيك استوى خير عطي إن إلهي بيساعد حسنات وعوده. أرضي كقلن شبيسي معهد التقوى أنا بنقرأ كقلن شبيني دعوتي تعليمتي ورسيبنا. الله سبحانه وتعالى قرآن ورتل أكمله قوة متداولة ومبادئ. فيصل على وعكتي هي إن المعهد كان أرضينا إن أي كلام وكبر رجليا المعهد كان مصوريسو وقطعنا مصوريسو وحنا كنا ما نرى أرضينا برضه ضلنا حتى الموقع الصور إلى اليوم معلمين توقفين علي داير محمد بوس تي في يونيفرسال برعو